qiraa'atu suurati اlkahfi suuratu اlkahfi aqrinteedii ayaa la sunneeya yowmahaa yowma اljumucati jumcada maalinteedii in la akhristo wa leylatahaa leylata اljumucati jumcada habeenkeediina la akhristo waxyaalaha la sunneeyey maalinta jumcaha waxaa ka mid a qofku inuu akhristo habeenka iyo maalinta suuratu اlkahfi maxaa yeelay nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam ajir badan iyo fadilo fara badan uu ku sheegay rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waa limaa saxa min qowlihi nabiga hadalkiisa salى اllahu عalayhi wasalam ayaa saxiix noqdo sugnaaday man qara'ahaa suuratu اlkahfi qofkii akhristay yowma اljumuca adaa'a lahu waxaa u nuura min annuuri xagga nuurka waxaa uga iftiima maa bayna aljumcatayn labada jumca inta udhexaysa usbuucaas inta u dhexaysa ayaa nuur ilaahay siiya subxaanahu wa tacaala usbuucaas oo dhan nuur iyo barakaad ayuu ku dhammaystaa usbuucaas oo dhan wa ikhaaru salaati salliga badintiisiina waa la sunneeya cala الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu wasalam wbaaraka calayh fiihimaa fii yowmi اljumucati wa leylatiha maalinta jumcaha iyo habeenka jumcahana waxaa la sunneeyaa in la badiyo salliga nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh leannu isagana axaadiis fara badan ayuu nabigu salى اllahu calayhi wasalam ku ammaanay qofka salliga badiya maalinta jumcaha iyo habeenka jumcaha khayrka iyo barakaadka uu helayo oo nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xadiiska abu daawuud uu sanad saxiixa ku warinayay ayaa nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu عalayه wasalam ina min afضali ayaamikum yowma اljumuca faأkhiruu min الsalaaةi calay maalmihiina waxaa ugu fadli badan uu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam maalinta jumcaha ah faأkhiruu badiya min الsalaaةi calay salliga aniga ad igu salinaysaan badiyuu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam waxaddu اlإkhaari 300 xadka badintana ugu yar qofka marka la leeyahay waxbuu badiyey oo salligiiuu badiyey badintaas waxaa ugu yar ilaa 300 ilaa 300 waa xadka ugu yar wey badinta salliga nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh waducaau ducihii isagana waa la sunneeyaa ducaha in la badiyo fii yowmihaa yowmi اljumucati jumcada maalinteeda in aada loo ducaysto ayaa la sunneeya lanna waxaa weeye waa liyusaadifa saacata alijaaba waxaa dhici karta qofku inuu aqbalo yacni inuu waafaqo saacata alijaaba saacadda ilaahay subxaanahu watacaala ducada uu aqbalayo liannahu nabigu salى اllahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay maalinta jumcaha inay ku jirto saacad aan ducada la soo radinayn oo addoonku wuxuu ilaahay weydiisto ilaahay uu siinayo marka culimmadu waxay isku khilaafeen saacadda ijaabada oo jumcada ku jirta waa saacaddee saacatulijaaba jumcada maadaama ay ku jirto waa saacaddee ayay culimmadu isku khilaafeen sheekhan hadda wuxuu yihi raximah اllahu tacaala wa saacatu lijaabati saacatulijaabadu fii maa wakti dhexdiisay ahaatay waktigaasoo beyna juluusi اlimaami imaamka fadhigiisa u dhexeeyo lilkhudbati liأjli اlkhudba khudbada darteed uu u fadhiisto iyo wa salaamihi salaami اlimaami iyo imaamka salaamo noqsigiisa inta u dhexaysay ahaatay saacat اlijaaba sheekha isaga raximah اllahu tacaala wuxuu tilmaamay saacatu اlijaaba inay ku jirto markuu imaamku waa khadiibkaa loola jeedaa khadiibku markuu khudbada u fadhiisto oo isdiyaarinayo inuu khudbadii u istaago isku diyaarin fadhigaas uu fadhiyo laga bilaabo ilaa salaada laga salaamo noqsanayo inta u dhexaysa intaas ayaa saacatulijaaba ah marka waa wakti ladiifa oo yar qofkii ilaahay uu waafajiyey subxaanahu watacaala calooshiisana wax xaaraama aysan ku jirin dharkiisuna uusan xaaraam ahayn oo isagu ducada aqbalkeedii asbaabteedii uu la yimaado amaa qofka hadduu xaaraan iska cunay ama dharka uu ku tukanayo ay yihiin dhar xaaraan ama guriga uu ku hoyanayo uu yahay guri xaaraana uu yahay taasi waxay ka mid tahay asbaabta ducadiisa yacni diideysa in lagu aqbalo asbaabta mawaaniculijaabay ka mid tahay waxaa kaloo culimmada qaarkoodna ay ku tilmaameen saacatulijaaba inay ku jirto maa bacda alcasri ila alguruub yacni salaada casirka maalinta jumcaha markii la tukado laga bilaabo ilaa qoraxdu ay ka dhacdo culimmada qaarna taasay ku tilmaameen wayukrahu waxaa la nacaa attakhadi ka tiltillaabsashada
qofku dadka inuu ka tilaabsado jamaacada masjidka markuu soo galo dadkii inuu ka boodboodo uu ka tilaabsado karaahiye wey waa limaa fiihi waxa takhadiga ku sugan oo min aliidaa'i dhib ah dadkii mu'miniinta ah ee jamaacadii inuu dhibo walaa yukrahu attakhadi tilaabsiga looma naco liimaamin imaamkii looma naco inuu dadka ka tilaabsado